الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وأصحابه أجمعين. رمضان كريم كل مسلمين iyo Soomaalida kulligiiba sida aad la socotaan waxaynu ku jirnaa 10kii dambe ee bisha Ramadaan oo iidiina ay soo dhowdahay waa xilligii dadku ay u baahnayeen inay farxaan wax iibsadaan ay suuqa tagaan carruurtooda iyo ehelkooda iyo familiyadooda ay farxaan oo hadiyadaha la kala iibsado sida daraadeed waxa ay xukuumadda dawladda Puntland ay go'aansatay in awaamirtii ay gudida la dagaalanka coronavirus ay soo saartay ay ku soo saartay waraaqda taariikhdeedu ahayd 27kii bishii 3aad 2020 waraaqdaas oo ay ku qornaayeen awaamir ay dawladda Puntland soo rogtay si loogu xakameeyo cudurka coronavirus-ka waxa ka mid ahaa awaamirtaas in isu socodka gobolada la joojiyay in xuduudaha la xiray iyo waliba in la joojiyay qaadka waxaanu doonaynaa inaan la socodsiino ummadda reer Puntland in awaamirtaas 10 maalmood ay ugu dambeysay Ramadaan awgeed loo khafiifiyay dadkuna ay isu socon karaan qaadkuna uu iman karo oo la keeni karo taas nagama duwayso inaynu ilaalino tallaabooyinkii caafimaadka ahayd in la kala fogaado in 2 mitir minimum la isu jirsado ka dukaanka iibinaya ka qaadka iibinaya iyo ka meheradaha kaleba fadhiyaba inay isu jirsadaan in gacmaha la dhaqdo waxa la yiraahdo tallaabooyinkii aynu hore u soo sharaxnay in la qaado waxa kale oo runtii aanu sheegayna inay reeban tahay in qaadka lagu iibiyo xarumaha dawladda iyo xarumaha hay'adaha waaweyn sida UN oo kale hortooda in lagu iibiyo meel asturan in lagu iibiyo qaadka laakiin in la keeni karo oo la keeni karo waxa laga gaari doonaa go'aan dambe haddii ilaahay marka iidu dhamaato laakiin laga bilaabo berito haddii ilaahay idmo awaamirtaas oo dhan waa la khafiifiyay waxaan rajaynayaa dadka muslimiinta ah dadka Soomaaliyeed iyo dadka reer Puntland inay 10ka dambe ee Ramadaan ku dhameystaan cibaado iyo khayr iidana ay ku gaaraan farxad iyo barwaaqo khayr baa dirjeenay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.